بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وياي وبقر عبدي بقر أحمد علي بقر كبيرة هوية نفسنا مركب عربة ما أنتنا لبضوا كليبي وحلا مذا كار المركبات وحنا هذه هذا السلام يا قلب ملوك ويا لطي لما مركبوينه يمت لبعض بصدحات الدولة هذا يقامين يسوع aadi aadan waxaan soo dhaweynayaa in galmudug loo helo halkaas oo ka imaan doona galmudug 2 oo ah gaalkacyo iyo galmudug 2 oo ximan iyo xeeb ah iyo galmudug 3 oo loo ah heer sunna wal jamaa waxaan leeyahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya muddo badan buu ku bixiyay kursiga oo ayana hadda waa 4.5 dawladdu ku dhisan tahay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre meel laga jecel yahay ka tagtay meel laga nacana waa tagtay waa amaal gud weeye ayadoo lagu leeyahay ra'iisul wasaare noo imow ra'iisul wasaaraheenna u baahanahay hadda waxaan leeyahay dawladda Soomaaliya waa inay hadda dib ugu laabataa xaruntii baarlamaanka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu bixiyay mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in baarlamaan sax la isugu keeno in ummaddu halkaas maartay isugu timaad laguna dhexdhexaadsho saddexdii maamul ee hor la isugu daray madaxweynaha hore Xasan Sheekh Maxamed oo isku daray oo ahaa galmudug ximan iyo xeeb iyo heer sunna sidaas la ajligeeda waxaan leeyahay ra'iisul wasaaruhu kursiga koow fadhisa waa kursiga hawiyo kala taagan oo gobolkii mudug la oran jiro ka dhaxeeyay ninba qaar garab ka saartay yaan waqti ugu dhicin taariikh ka tag saasan leeyahay odayaasha midnimada beelaha wiyana waxaan leeyahay waad ku fashalanteen magaceeni iyo masabkii iyo duqownimadii leedin hayay oo ama aad ku ahaydeen afhayeen ama aad gudoomiye ku ahaydeen ama aad ku ahaydeen ninka la yiraahdo magaciisa maxaa imaamyo ama aad saxiixayaal ku ahaydeen gebiba waxaad ogaatiin ilaahay idankii wixii leedin malaynayay oo shacabku ku xamalayeen soo baxday waxaan leeyahay dib soo inta hadda joogtiin oo nooshiin waxaan madbuun kaga dayato amba istifaaraha ama dadka nacfi iraahda dulmiga aad ka gasheen gobolka galmudug iyo galgaduud maahan hadal duub maahan hadal nabadoonna maahan wax odayaal sameeyaan maahan inaad dadkii adinka oo nool oo jooga oo weeyahay maxamed xasan xaad oo afayeenkii kamid yahay ninka la yiraahdo Cabdiraxmaan Axmed Deeri oo kamid yahay ugaaskii ama boqorkii hawiye ninkii sheeganayo ahaa Bashiir Ereg dadkii inuu lumo oo lumisiin oo dadkii la idin diradada ahayn aad keentiin ummadeena aad dagaal u cilaamisiin korkeena oo dagaal ka dhaco waxaan leeyahay sax maahan nin kasta oo maanta meesha ay marayso waxaad dadka colaaddan baa u celinayna iska soo taga haddaad ilaahay idmo ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay cadaad u laabray cadaadana waxaan leeyahay dadkii idin yimaada soo dhaweey aad iyo aad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu boqol waa mahadsantahay muxuu muuqataa in oo tagi ra'iisul wasaaraha u guuri karo magaalada cadaado horta cadaado waa ciidu kama xigto cadaado ra'iisul wasaaraha tagi kara madaxweynaha tagi kara wasiirada tagi oo xildhibaanada tagi kara Soomaaliya oo dhan tagi karta cadaado maadaama oo ka jira iska qabsi dhuusamareeb iyo ala sunna iyo aysan iyo dawladii مسدي كرت هدي عدد الجي دولة أو حاجة عدد الجي إن أي ما ملصم كرا أما واحد يسبدل كران عدده ومال آدي عدد كيدو والربو نبض ما هي لبح دمك عدد دولة دوك حد ونبض يا نور الله يجعل سكرها دولة الصومالية حد هذا هو حزبياش نكى قاعد حزبك اللي بكون دعوية نبض يا نور الله واحد كنت على عدده نبض يا نور الله شيء تعالى هلا تجوا نبض يا نور الله عدده ونبض يا نور الله بوندا يكون قرنته نك استوارك ووجي magacaasna ka xaday meeshii uu ka baxay ninkii tagaa nabad iyo nolol ku soo dhawaanay ama dawladda ka socdo ama dalka la ka socdo meel kasto laga yimaado cadaada waxa la ballan qaadayaa qof kasta ee taga marka aeroboortka ka digto wixii ka dambeeyay amnigeeda waxa qaaday cadaado maadaama aad tahay boqorkii beelaha hawiye waxa jira gaalkacyo waxa doorasho ka dhacday sidoo kale dhuusamareeb ka dhacday maxay kula muuqataa xalka galmudug in lagu heli karo waxa horta dhib yaa loo arag maamulkii hore ee Xasan Sheekh mideeyay وي هدر أول مركب روح مدوك أو نيك اللي رحاف شو يحمن يحيو شو نيك اللي هذا ورلح أما طيعي
iyo meesha la yiraahdo ahlu sunna oo sheekh maxamuud ay joogeen ninka la yiraahdo shaakir marka laana hadda waxay noqonaysaa dadkii in la isugu keeno hadda meeshii markaan aan buuq ka taagnay hadda labada arrimood oo buuq ka taagan yahay waa mudug iyo waa ahlu sunna iyo nimanka la yiraahdo galmudug marka ximan iyo xeeba hadda nabada waa in dadka la isugu gaayo oo ummadooda raalli ku tahay la isugu tagi karo sidaa uu maxaa u baaqaysaa marka galmudug maadaama horta ma jirto galmudug shacabka galmudug walba maxaa u baaqaysaa shacabka galmudug laba way waa galgaduud iyo gal iyo mudug waa labadoodu sidaas hadda ku kala waa gal iyo mudug iyo galgaduud haddana waxa ka dhex dhashay ximan iyo xeeba ka dhex taagan oo labadoodii aan galgaduudna qayb ku leh mudugna qayb ku leh magac leer ximan iyo xeeb la taagan anu marka waxaan leeyahay dadka la isu keeno dib loo egleelo sidii dekada u dhistaan airport u dhistaan horumar u gaaraan dadkan kale oo hadda nimba uu maartay madax sheeganayana hadhowto galmudug soo qabata ximan iyo xeeb iskale madaxweyne ninka sabab keentay laakiin mudug uu ka yimid ximan iyo xeeb iskale ximan iyo xeeb markuu ka gudbana waxa iskale ahlu sunna sida la ajliga waxaan leeyahay sunnana waxaan leeyahay waqtigiina sugta amba hadda inta la tartantin ximan iyo xeeb ka qaada oo baash wadaday ku joogtaa marka sidaas la ajliga waxaan leeyahay dadka waa in la isugu keenaa xaruntii hore ee baarlamaanka maaragtay cadaado dadku waa inuu dib ugu soo laabta xaruntii hore ee laga yagleelay la isugu keenay galmudug beeluhu 12 beelo isugu yimaadeen amnigooda iyo hadda haddii xitaa maaragtay tasjiilaadka ku baxayana annaga ballan qaadaynaba waa in dib nabad la isugu keenaa aad iyo aad u mahadsantahay boqorka beelaha hawiye cabdi maxamed cabdi calas